faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo dad xoololey ku dhex maray deegaan duleedka ka ah degmada Xudur ee gobolka Bakool. Dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay shacabka xoog uga kaxaysteen geel fara badan sida ay sheegeen horjoogayaasha dadka xoololeyda ah, taasoo keentay inay la dagaalamaan. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Yabyab oo hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool, waxaana la sheegay inay ku geeriyoodeen 4 ruux halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwa oo isugu jira labadii dhinac ee halkaasi ku diriray. Ugaas Cali Diiriye oo kamid ah abaabulayaasha deegaanka ee isku biirsaday inay la dagaalamaan al-shabaab ayaa sheegay in ciidanka dowladda Soomaaliya ay garab ka heleen isla markaana ay iska difaaceen al-shabaab oo doonayay in xoolo kale ay ka kaxaystaan. Waxa uu sheegay in al-shabaab ay beegsanayeen dad gaar ah kadib markii ay soo baxeen dad is-abaabulay oo la magac baxay calan qaran ayna bilaabeen inay la dagaalamaan al-shabaab. Dadka xoolo dhaqatada ee ku nool qaar kamid ah gobolada dalka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku dhiiraday inay shabaab dagaal la galaan kadib markii dowladda Soomaaliya ay weysay tabar iyo taag ay ku gaarto deegaanada ay ku nool yihiin oo al-shabaab sanado badan ay maamulayeen. Maxamed Macalin Mustafa, Kalson TV, Muqdisho.